السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin wada qasa ka dhacday wadanka Mareykanka. qasadan waxay dhacday 2019 Texas ayay ka dhacday. waxay ku socotaa qadiyadan gabar la dhahay Elizabeth Barker. waxay dhalatay June bishii 6 1989 ayay dhalatay. Elizabeth waxay isguursadeen nin la yiraahdo Sergio 2014 ay isguursadeen. 2014 kabacdi waxay sameeyeen 2017 waxay gateen a house ay iibsadeen, a beautiful house ah. waxay ahayd gabar aad oo mataqaanaa furfuran oo faraxsan oo mataqaanaa gabar aad iyo aad yacni u ah happy all the time oo kind waxaa qof yacni dadka u naxariisto oo mar walba dadka yacni ayadoo qoslaysa arkaysa qof kasta oo barta wuxuu ku sheegay yacni how ay gabadhaas u wanaagsaneed oo ay ku sheekeynayaan. gabadhaas waxay jecleed in ay sameysa customs waxaa la yiraahdaa kuwa sida Halloweenyada la gashta all celebration adiga qof kasta oo leh dabaaldeg waxyaabaha la gashto isku eg oo ismaaj gareynaya. waxyaabahaas ay hagaajin jirtay online ay ku gadan jirtay. businesskaas ayay lahayd Elizabeth businesskaasi aad ay ugu kala kacsanaa. waxay sameyn jirtay isbitaal ku yaala Texas oo dadka kansarka ilmaha kansarka haya ay leeyihiin oo lagu daaweeyo ay tagi jirtay ayada oo kaasmarka xiran. waxay ka qosashin jirtay ilmaha yaryar oo jirin ay ka farxsiin jirtay boos way jecelin ilmaha wax kaasmarka xiran. يعني waxay all the time waxay tagi jirtay isbitaalkaas. waxay jecleed inay dadka caawiso. one day baa waxay rabeen ayada iyo ninkeeda waxa ahaa dabaaldegoodii sanad guuraha arooskoodii xilliga ay isguursadayeen. marka waxay ku ballameen inay meel aadaan oo qurux badan ay ku qaataan. maalintaas shaqo ayay lahayd. shaqadii way wacday, guriga ayay joogtay. ninkeedana shaqo ayuu aadayay. labada dhaban ayuu mac ka siiyay u hagareeyay baay ayuu yiri wuu baxay. 5 daqiiqo oo 6 daqiiqo ka bacdina Elizabeth markaas waxay marka balan garinaysa shaqadeeda way wacday. waxay rabtay marka garage sale in ay sameyso. waxay rabtay maaragta lacag yar oo cash ah siday u hesho because meesha ay aadayaan waxay ahayd meel aad u expensive yacni qaali ah waxyaabaha ku baxaya. marka waxay rabtay waxyaabo yar oo cash ah inay sida gacanta ugu sii qabsato. waxay leedahay marka cidna uma sheegin in ay lahayd garage sale. ninkeedii markuu tagay waxay sameysay garaashkii ayay furtay. subax ayay ahayd 6:50 ay ahayd marka timekana. xiliyahaas marka xiliyaha winterka ah waa mugdi camal waa 6 markaas camal waa mugdi camal maalin camal maaha. adig dhaag bay ahayd waxyar. ninkeedii markuu baxay garaashkeedii ayay marka seel ku sameynaysay ay alaabtii banaanka usoo bixinaysay. ayada ayuu alaabta banaanka usoo bixinaysay oo banaanka taagan. garaashkeedii baa qof xiran customs like wuxuu xiran yahay goono skirt. customs wuxuu xiraa skirt goono dheer ayuu xiraa. laakiin dadka waxay ku qiyaaseen in uu ahaa qofkaasi qof nin ah oo the same time tima dhaadheerna wuu lahaa. laakiin timaha waxaa dhici kartaa la yiri waa timaha wiigga oo timaha la gashanayo oo kala. laakiin dadka waxay u badiyeen
in uu yahay nin. baa u imaaday, qofka gaari ayuu watay. gurigeeda marka waxaa ku rakibnaa camera. qofka gaariga camera ayaa ku rakibnaa, wejigiisana lama arkeynin, lugahana wuxuu gashtay hoostana wuxuu gashtay goono dheer iyo kaba waxaa ugu jira buud ah. gaariga uu watine baleed ma lehen. nacam waxyaabaha lagu garto waxaa lasku gartaa wadankan, baleed nabarkaada ayaa lasku gartaa. qofka baleed nabarkiisa haddaad heshid meeshuu degan yahay iyo magaciisa waad keeni kartaa, laakiin gaarigu hadduu baleed nabar lahayn qofkaasi waa adigeysaa ku heshid. so waxaa dhacday qofka inuu gabadhii la hadlay. markuu la hadlay inuu dhahay, yacni dadka waxay dhahayaan good morning oo kale, ee ayadana la hadashay. wax yar ka bacdina 4 xabadood ayaa lagu dhaftay gabadhaas. 4 xabadood markay ku dhacday dhulka ayay ku dhacday, qofkiina uu orday. so neighborska way maqlaayeen 4 xabadood si u dhaceysay way arkayeen, because dadka subaxdii way soo wada kacayeen, waxay iskuul u soo kacayeen, waxay shaqo u aadayeen. it was time kala soo wada kacay ay ahayd. markay 4 maqleen neighborski ayaa waceen booliista. sidii ayay booliista ku imaadeen. qofkii CCTV-gii ku yeelay gurigeeda uu qabtay, laakiin qofkaas muu qabanin facekiisii. laakiin qofka markuu soconayay ayada markuu u tagayay wixii oo dhan way qabatay, laakiin qofka uu yahay ilaa ay hadda lama cadeyn karo. marna naagu dadkay dhahayaan, marna waxay dhahayaan nin waaya. idinka aaday weydiiyey qofka, dadka waxay leeyihiin waa qof gabadhaasi yaqaana waaye. qof yaqaana oo yaa u sheegay qofkaasi gabadhaasi inay waqtigaasi xilligaasi garaashka aadaysa. siduu ku ogaaday xilliga waqtigaasi gabadhaas inay garaashkeeda furayso oo banaanka istaagnaanayso, because ciday u sheegtay ma leheen. second, sidee bay ku ogaayeen qofkaasi inuu ninkeeda baxaayo shaqo aadaya, unless uu qof og scheduleka ninkeeda xilliguu baxo, xilligay ayada baxdo qof bay dadka dheheen commentada lasoo qoray, ama qofkaas waa qof u dhow ayada oo ogaa waayo. qadiyadii ilaa ay hadda lama solf garaynin. ilaa ay hadda waa open. ilaa ay haddana 50,000 ayaa loo ballan qaabay qofkii soo sheego. ilaa ay haddana wax soo sheegay ma laha. marka idinka sidee idin la tahay? anigu aragtideyda waxay la tahay sideedaba qofka adiga ku dilaayo waa qof adiga ku og xilligaad saxatid, xilligaad baxdid, xilliga aad soo gashid. waa qof adiga qaasatan ahaan kuu og waayo oo kuu dhow. CCTV-ga waxaa kale uu arkay in uu 2 beri ka hor ama maalin ka hor gaarigaasi uu hormarayay gurigeeda before intaan la dilin ka hore. soo qofkaasi waa qof ilaalo ugu jiri waaye. intuu waxaan sameynin waa qof ilaalo ugu jiri, time garaynaye. marka ninkii aa laga shakiyay, ninkan waa laga waayay waxba inuu madhaa naag la xiriir lalahaa, ama naagtii ay dishay, ama naagti adiga wax walba ninkan waa lagu sameeyey. qadiyadaas ilaa ay hadda lama helin. waa open file. bal idinkana waxaad ka dhehaysiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qadiyadeennina halkaas ayay ku eg tahay.
waa qadiyadooyin badan ayaa idin keeni doonaa insha allah. Subscribe channelkayga, like, share, kulligiin baqayr ayaan idin rajeynaya. Assalaamu calaykum.